waxaanu maanta ku sugannahay magaalada Eyl ee xeebta ku taala ee gobolka Nugaal. magaaladan Eyl waxay leedahay taariikh aad iyo aad u fog. magaalada Eyl waxay ka kooban tahay dhowr qaybood, tiro ahaan ilaa 3 qaybood. qaybtan imikaanu ku sugannahay daawad baa la yiraahdaa, waxaana loogu magac daray qalcaddan imika iga dambaysa oo ah qalcaddii daraawiishta ee Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. waxa la qiyaasayaa in dhismahan iga dambeeya dhismihiisa la dhameeyay waqti haatan laga joogay ilaa 116 sanadood. haddaba magaaladan Eyl oo taariikh aad u fac weyn leh, taariikh dhowna leh oo ay caan ku tahay, waxay iga waramaya gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka Faysal Khaliif Wacays. aad baan ku salaamay walaal, iska waran. ما شاء الله. soo lama wanaagsana waa ku faraxsanahay inaan maanta Eyl idin la joogo. sidoo kale anagu aad baan ugu faraxsanahay maanta Cabdisalaan Herari inuu degmada Eyl la joogo. waad mahadsantahay walaal. ما شاء الله. qaybtan daawad baa la yiraahdaa magaalada ka tirsan. صح. qaybaha kalena maxaa la yiraahdaa؟ magaaladu waa dhowr qaybood weeye. xaafadan hadda aynu joogno waxa la yiraahdaa daawad. dhinaca xeebta mid saaran waxa la yiraahdaa Beday. kadibna marka Beday ha noqoto ama daawad ha noqoto xaafada gaar bay si yeelanayaan, laakiin Beday iyo daawad baa la kala yahay labadan xaafadood. laakiin qaybtii qadiimiga ahaydna waa jirtaa Soomaa. qaybtii qadiimiga ahayd waa jirtaa. way dabcan wayna soo mari doonaa qaybahaasi, laakiin bal hadda magaalada sawir guud naga si xaaladeedu say tahay marka. alxamdulillah Cabdisalaan, magaaladu sawirkeedu ama xaaladda guud ee degmadu aad bay wanaagsan tahay, wax dhibaato kama jiraanin. magaaladu waxay leedahay runtii taariikh aad u fog sida la sheegay. qalcaddan hadda aynu joogno oo Sayid Maxamed Cabdulla Xasan uu dhisay muddo haatan laga joogo 116 sano ayaa laga joogaa markii la sameeyay. laakiin taariikhda sida aan ku hayno magaalada ka hor baa la deganaan jiray, waliba meesha la deganaan jiray waxay ahayd xaafadda la yiraahdo Beday. sayidka ka hor baa meeshaas marsay ahayd, waxba laga soo degi jiray. dad yow hore baa deegaanka deganaan jiray. marka degmadu xaaladeedu waa sidaas weeyaanin. waa magaalo taariikh fog leh, waa magaalo maaragtay hadba maaragtay talis uu imaanayay. marna Sayid Maxamed Cabdulla Xasan baa fadhiyi jiray, mar Ingiriiska baa fadhiyi jiray, mar Talyaaniga baa maaragtay fadhiyi jiray. dawladihii maaragtay rayidka ahaa ama dawladii kacaanka ayay degmadu ay qayb ka ahayd. marka magaaladan taariikh aad u fog bay leedahay. dad xadaariyeen oo ilbaxna degmada waa joogaan. daraawiishtii dabcan dhismahan daawad oo kale ka tageen oo raadkooda aad buu uga muuqdaa. xukuumadda kale soo maray maxaa raaday iyagu ka tageen? xukuumaddii soo maray mid aan raad ka tageen maaragtay ma jirto. Talyaanigii oo kale hadda oo fadhiyi jiray. hadda gurigan hadda marka dhinacna kan ah oo hadda xoogaa burburka uu ka muuqdo Talyaanigii baa dhisay. waxaana deganaan jiray markaas Talyaanigii ninka markaas magaalada ugu sareeya oo deegaankan markaas haystay oo kumasaariya la oran jiray ama diinsi dadku ay oran jireen. Talyaanigu qalcadihii magaalada uu ka dhisay waxa kamid ah isbitaalka guud oo hadda degmada waxa weeyaan Talyaanigii oo isaguna wali hadda shaqeeya macnaha ma arki doonteed macnaha. isbitaalka waa la balaariyay, qaybo ka dambeysay baa dawladihii kala dambeeyay mar walba maaragtay ku darayeen, laakiin isbitaalkii guud ugu horeeyay oo degmada oo hadda qaybtiisba ay shaqayso oo qaybta ugu weyn waliba ay tahay Talyaaniga ayaa degmada maaragtay ka sameeyay. sidoo kale Ruushkii guryo badan buu halkaan ka dhisay xilligii dawladii maaragtay Maxamed Siyaad Barre. maxaa loo isticmaali jiray guryahana markaa kuwa Ruush ku dhisay? kuwaas Ruush ku dhisay waxa loo isticmaali jiray isbitaal baa loo isticmaali jiray xilligaas. waa tahay xaggan haddaynu yara dhaqaaqno bal intaynaan qaybaha kale ee magaalada soo marin qalcadda suurtagal ma tahay inaynu gudaheeda galno? qalcadda waan geli karnaa, waa arki karnaa, waa la geli karaa. waana soo keenaa. inaba wax dayactira ma loo sameeyay mise waa sidii lagu dhisay weeye? waa sidii lagu dhisay. qalcaddan sidii lagu dhisay weeyaan. ilaa hadda ilaa waagi la sameeyay wax dayactira oo lagu sameeyay ma jiraan. ilaa haddana waa sidii bay u taagantay. laakiin muuqaalkeedu aad buu u fiican yahay dusha. muuqaalkeedu aad buu u fiican yahay. waxay ku xiran tahay dhismahaas xilligii dadkii dhisayay. nin injineer baa dhisay oo Yemeni ahaa, Axmed Saalax Baajureyre la oran jiray. marka oo shaqaalaha sayidku ka tirsanaa miya? Axmed Saalax injineerkaas xilligii sayidka oo halkan wadanka uu joogay waxay ka yimaadeen dhinaca Yemen. marka Bambaasa bay doonta u socotay. markii magaalada xeebta Beday ay ku beeganayd baa doontii ay la xumaatay, ay saarnaayeen nimankii carabta ahaa waa badnaayeen. markaas baa sayidku uu la soo degay, isagoo sayidkuna aaminsanaa nimanka Yemeniyiinta ah inay dhismaha ay aad ugu fiican yihiin, ay ugu sareeyaan. marka waa la soo degay, heshiis buu la galay marka inay sartaan ay u dhisaan. sidaas marka sartii ay ugu dhiseen. marka dhismaheedu waxa la dhameeyay 1904 miya?
كوني سجال بقولي أفرتي باللمية كوني سجال كي بقولنا والله بلا بيد اسمها أفر سنة وبيسوتي صدح دقيقة ككوبنتي سوما ها بدو يسيد هلك وجوي جري سوما سيف عنها وجوي جري وحرنتي سوي مش هذا يعني كوجي رمان قرتي دشوا وكري كرينا سوما markaad halkan soo korto runtii waxaad dareemaysaa in taariikh nool aad dhex socotid farsamadooda xagga dhismuhuna siday aadka ugu heerka sarreysay ayaa goobtan ka muuqata marka xagga sareen u baxnaa miya maxaa loo isticmaali jiray guddoomiye marka halkan soo maaha halkan waxay ahayd waa farisbaalkan u ahayd arrintiisii u dhexaabay ahayd ciidama fadhiyi jiray xaruntii taliska daraawiishta xaruntii taliska daraawiishta kan ahayd sayid maxamed abdulla xasan waana meel taag oo laga wada arki karay magaalada oo dhan waa meel taag oo magaalada dhan laga wada arki karo afartan sax xitaa markaad dhinacan usoo yara dhaqaaqdo waxaad arki karaysaa goobihii loogu talagalay in laga difaaco qalcaddan oo halkan aad uga muuqda taariikhiyanna waa sidii loo samayn jiray guud ahaanba qalcadaha adduunyada oo loogu talagalo meelo laga difaaco waa diganaayeen marka meelahan duleelada ah duleelku midna waa taag weeye oo wixii ka shisheeyay bay isoo qabanaysaa waa meelaha ugu talagaleen inay xaruntan ka difaacaan midna daldaloladu waxa weeyaan in waa hoos lagu talagalay in hoos joogta macna hay in halkaas laga difaaci karo marka waa qaab ciidanna waa u dhisan هلو استخدام جري وفردها واي فردها اللي بحرو وفردها مركز دوشة لسو ساري جري مياه دوشة ساري جري قرتي لكن دي ما دام السؤال قياسي فردها بدن اي لهايين كل ما دوشة يسوي كل جري ما حبوا صدح اسكارسين هو هدي على السماء هذا حرمها وهو كل هاي اسماعيل wuxuu kamid yahay ragga aadka u haya taariikhda qalcadan iyo raadkii daraawiishtu ay ku lahaayeen deegaankan ismaaciilo deegaamo intee lag baa laga xukumi jiray halkan markaa meeshaan saldhigga ugu weyn halkan waxay ahayd qalcad difaac oo wuxuu ka soo galay cadowga xilliga ay siiyeen markii ay nugaali bannaan ku noqotay wuxuu yidhi hala soo saameeyo meel daraawiishtu bacdama inta ay curdanka tahay ay ku kobacdo oo ciidanka lagu ururiyo halkan bay nimankii yimaadeen sahanka ahaa nugaashaan bay soo xireen waxay ruboorka u celiyeen sayid waxaan soo aragnay dal cadaabeed meel dal cadaabeed هاي امتحانه وحق لك راجين وحويري إن حا ضد عذابيت بالله يقرأ ضد عذابيت معناها ضد عذابيت ضد عذابيت بالله يقرأ هذا السيدين موقته سيد كعود استيقظ عاب ضم وحيابها ساقوتيتي يا مقالوي لكن مدهن وحكي قد وانتهي مركب باحلقة وحتوقين جري مراكبة إنجليز مركبكم مدفعي واله الواي حوبينا ما هيسن قركا ساكو قدبن بوراها ساكو قدبن طلعت كستوى كلا واجد لكن كان وافد بعد منافع دي لغو سو غلينا وحا دفاعي قركا ميل استمركا روح عشا مركبة وحا دفاع هو أضل لكن هل كان غلط باهيد قبع لباكو يعني بالتروكة لتبدي حيستال يضن عندين ومراكبة كان وافد شيء إسماعيل ومركا قبيا جري سو ما سيد كل هايو ديغان كانوا كغا هدليي قلعدا صرت لفتا مid buu ka helay waxa ku jiray way Xuseen ninkii haystay wuu la balamay wuxuu leeyahay faraska kor saarso xaabada gudaha ku soo goro ceel baa dhaxda ka qodan
كل بيدها وحكوا جري دور كان حالي سنة درس الله سكان درس الله سكان مركب بيوبها تتوجه هذه ينعدو كهيري هاي ينعدو كهيري أسكت كله هذا ما مش كاين إلا عجقة مركب وحيد ميرس كفران فردا لما كسد حوا كحرة حدي ولا يصوفوا لو ترى قال إنه حرونته قلن قال لي حرونته وله وإنتي شفتها مركا 20 كيلومتر ميراس كده وحبوا وين ما وماشوا بدن أو قبور السيد كي حرونته عيدا جوجي حول دقائق كي له هل كان ويجران مد إلك دلدلين من اللي راح إلك ويجران سفع عمود قرتي waxa kale oo magaaladan Eyl wali ku nool tafiirtii qoyska ninka injineerka ahaa iyo maniga ahaa ee qalcadan dhisay ninkana kamid ah السلام عليكم عبد القادر ايوه رولا aad baan ku salaamaya soo loo fiicna khayr weey taariikhda hore awowga waxaad naga beerin karaysaa taariikhda awahay iyo aabaxayba waxaan ka beerinayaa markuu ugu horeysay intaan taariikhda galin Cabdisalaan Hareeri aad baan u salaamaya boqolkiiba boqol aad baan ku salaamaya idoo marka inkastoo aan jeclaan Cabdisalaan Hareeri inuu markuu mar hore noo yimaado marka haddii aan kaaga sheekeeyo macnaha taariikhdan sarta iyo wayaashii meeshii markii hore ay wadanka markay imaanayeen sideedaba injineerku wuxuu ahaa halkan dhisay Axmed Saalax Baajireer oo awogay waxaa la socday wiilkiisii oo Saalim Axmed Saalax Baajireer oo aniga aabahay ahaa xagee ku socdeen markaas ay waxay ka yimaadeen Arduyama walin Arduyama waxay ka yimaadeen wadanka Xadarmood xataa waxay ka yimaadeen qaryo la yiraahdo Xuruuba oo mudiiriyada tahay laga xukumo dooc markii la yahay waada camil xaafaduna ay tahay Xadarmood doonta waxay ka soo raaceen Miinaa Makawa doontu waxay u wajahneed socotay wadanka Kenya magaalada Bambaasa Saalim oo ninka markaa yara oo away Axmed Saalax Baajireer oo injineerka ah Saalim wuxuu ahaa 13 jir meelaha Saalim wuxuu soo kaxaysay adeerkiisa oo degan Bambaasa oo markaa oo adiyo ganacsi ku haystay oo maal iyo xoolo ilaahay siiyay ku socday oo yaan caruur iyo awlaad lahayn oo yiri ii soo kaxay Saalim aw hadaan dhinto maaragtay wax maaragtay haay saasuu marka Saalim u soo kaxaystay Axmed Saalax labadooda kaliya marka doonta saaran ma doon kala dad kala socday caraba waxaan u wajahnay Bambaasa hadda doonyo waqtigan waxay hayeen doonyo shilaac ah oo doonyo yar bi ah xilliga waqtiga waa 1900 waa 1900 haay doonti waa soo khaliftay oo meelahan isoo kashanay degmada ay agtiisa wadanka marka waxa haysan jiray u talin jiray ninkii geesiga oo Soomaaliyeed ee loo oran jiray Sheekh Abdullah Xasan oo baal dahab kaga jira Soomaaliya iska day afka kaga jira nimcaana gumaysiga inuu ku xoreeyo dalkiisa ayaa meesha marka u talin jiray haddii doonta ka fursadda waxa ka faa'iideystay Sheekh Abdullah Xasan sayidkuna waqtiga xilliga markii la fiirsho Soomaalidu waxay dad aqoontooda marka waa yaray dad yar baa waxa aqoonto wuxuuna ahaa nin ku soo batay wadamada Carabta fursaddaas ayuu lumin markuu loo yeeray oo la yiri halkan daraawiishi diray doon baa halkan ku soo fariistay oo u yeera halay soo kaxayo oo dadkii loo yeeray oo loo keenay dilba wuxuu dareemay nimankan ay iswareysteen xadarmiyaduna waa la socotaan caalamka adduunka nimankan ismaha aad ugu wanaagsan baa xagga yimada hatta wadanka Mareykanka wala waxa jiray xadaarta ay dhistay fursaddaas uusan dayicin sayidkii wuxuu fursadda ka faa'iideyso waxa intifaaqiyad buu la galay ana in saacidayo heshiis buu la galay oo leeyahay ana wadanka ku celinaya intifaaqiyadaas buu la galay waxa ay sameeyaan saraaci aan gumaysiga kula dagaalay kabacdi markay intifaaqiyada galeen sidaba Sheekh Abdullah Xasan sarti ugu horeeyay uu dhiso oo Soomaali meel uu ka dhiso sarta daawad baa sartaas ayaa la dhisay 1900 baa la bilaabay 1904 waa la dhamaystiray Axmed Saalax markii uu dhamaystiray oo wax yar qabyo u haleen ayaa tii rabtay waa meesha dacaayada laga sameeyo ee la yiraahdo sarta Axmed Saalax markuu dhisay buu gacanta gooyay taariikhdaas meel walba ku faaftay marka ma jiraan bad marka la maxaa aniga aabahay kelmadda ana weydiiyay beena sheegi maayo taariikhdana been laga ma sheego
marka heshiiskii maalinta la galay weli wuu socdaa soo maaha maadaama deegaankii joogtaan haddii deegaaga tii qudrada bil waa iska xugmayeen meel tallaabada iska xugma weeyaan meesha ku dhalno maarta ku aasaasan baa xugmalay way haddii uu dhintay ka bacdi aabahay nin yar buu ahaa sayidka gacantuu ku dhigay sayidkuu la soo koray markuu wuxuu weynaadayna booskii axmed saalax baa jirayna waxa u galay saalim baa u galay maxaa kale taariikh aad ka soo gaadhay ee qalcadan ku saabsan ama awowga ama aabaha maxay kale kaaga sheegeen dee waxay iga sheegeen macnaha sayidku marka inuu wakaa marka talin jiray macnaha meeshan mataqaanaa ka bacdina waxa sii dhamaystiray qabyadii saalim axmed saalax baa jiray wuxuu saalim axmed saalax baa jiray usii dhisay xataa taleex meesha la yidhaahdo taleexna isagaa dhisay saalim baa dhisay aabahay أحمد وادي تشوف قبيلة تأكل وادي من زمان كذا واحد يسي مقالة اسمه هذا يسي سالم حمسان مقالة السياحة بقى أيكوشة قال مكة ملكة السيد كبرك السيد مقالة واحد ملكة ما هي المقالة للسنة سيد كأوه رئيس سيد كنا حيل تقلبه ماشي الوسود دقي وعمل مالتي تجي يبيه يقول له وكو قبيا وحي ربع السالم وعمل دفيسة سيد كمرك هذا فيرينا أقوانتي محمد أركان الجيش إنه أبان دولع إذا سبته ماشي وصلها هلك كتاعي سومالك وحوية والدفاع هو سوي دول ها والدفاع حدا تكتيك بدأ وأركيسة حاجة وأركيسة ملب وأركيسة وأوجد أنه ما هو سمي واتها أنت هدوانان قلعدا كبحين بالهدان نسكت إنه مد قلالك كمده إن أيضا كنا نلا ركتها imika waxaan soo galay mid ka mid a qolalka qalcadan oo la ii sheegay in waqtiyada qaarkood khaasatan waqtigii kacaankiisiyaad bare inay ahayd saldhig biliisku ay leeyihiin marka xafiisyada lagu shaqayn jiray gudoomiye balkan waa teed wixii loo jiray dhalinyaro fara badan baa laga yaabaa inaanay teebka soo gaadhin oo qolada laptopka iyo kombiyuutarada waraaqahana waxa weeye waraaqihii dowladda waqtigaasi taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed baa ku qoran saldhigga booliska Eyl lacagtaanu ka xanibnay bursiinada safarka bisha January waa bishii January 77 marka intii waqtigaasi ka dambeysay ee lagu shaqeyn jiray innaba wax maaragtay dayactira iyo waxba looma samayn meeqlaada may wax dayactira looma samayn waa sidii loo dhisay way ma isku daydeen inaad gaarsiisaan fariinta qalcadan ama dowladda Puntland ee dhexe ama cid kale oo idinka caawisa wax badan baan gaarsiinay waana yimaadaanin waa arkeen waan u gudbinay marka kulliba hadda waxaan rajaynaynaa kulli si dhaqso ah inay dayactir lagu sameeyo oo ay sida maaragtay ka fiicnaato insha Allah ورقم كله ذاتي تاريخي هذه الحكاية جميل حلو استعمال ديجان فياني ديجان موجودنا واي ديجان موجودنا ومركا كي سيدكي كو قبتين ميا يا قلعدي سيدكي كو قبتين هاي درس ولي واي marka waxa deganaa gudoomiye degmada Miyaa mise maamulka deganaa sida idin muuqata inkastoo dhismahani uu ka dambeeyay qalcadda sayidka haddana
aad buu burbursan yahay goorma lagu qiyaasaa in kan la dhisay kan waxa lagu qiyaasaa 1943 isaga beertan iyo isku waqti u badan marka ilaa 40 sanadood buu ka dambeeyay qalcadaasi qiyaasi gudaha ma eegi karaa waqti kale ضمن عبد السلام هاي يجي ضمن واسكول فرين اسكول فرين marka xeelada handa wuxuu tala galay Talyaanigu marka soo deegaan balkan deegaan هاي wuxuu tala galay hadii ilaa laga soo galaa ya inka kale laga boodi mid kasta oo ka bixi karo هاي wuxuu tala galay hadda bigi hore fiiri waskuul فرين مقاطع لكن هذا قصة والحاجة اللي تهاجي هي السوق ما يكون مقرية يقولتي كده بيسي يبارتي قيبها الحوصنة ومقالة دي قديمة هذا كثير مركب الدقيقة يقوليها ولي حق وسك مقضى هذا قيب كم دول الدقيقة دكتور حاجة ينوع مقضى يسوق مقولة مية سنة كذا مقولة هذه اسمها صواني ومقال كنت آدي هذا قرطة دوش هذا كتاب بلير هذا مركب لو talagalay oo soo waxa calaamad iyo nooc asaar la talagalay qaadaan السلام عليكم اهلا وسهلا شو رمضان سلمونا كرامه هاي هيري اي وي صورة نيكا قيبتنا وقيبتها المضى هذا عندنا كان اوكي isbitaalka magaalada Eel baanu imika soo gaadhnay oo qudhiisu leh qayb qadiimi ah oo Talyaanigii uu ka tagay inkastoo la balaadhiyay qaybo kale lagu daray gudoomiye qaybta qadiimigii waa qaybtan miya qaybta qadiimiga oo xilliga Talyaanigu uu sameeyay waa qaybtan hada soo jeeda marka isbitaalku waa balaaran yahay qaybo badan buu ka kooban yahay oo qolada bahda caafimaadka iyagu bayna ka warrami doona laakiin qaybtii ugu horeysay oo Talyaanigu sameeyay isbitaalku waa qaybtan hadda aynu u jeedin soo jeeda marka 1940 baa la dhisay miya 1940 may waa ka wareysay 1900 ilaa 30 meelahaas baa uu sameeyay marka meelaha ugu qadiimisan ee magaalada Eel bay ka mid tahay waa tahay hadda mid ka mid ah dhakhaatiirta isbitaalka ka shaqeeyay isagana aan wax ka weydiiyay sida hawshu imika halkan uga socoto walaal magaca محمود بالدهورة maxamuud dee adu waad ka gaashaamatay covid-kii covid-19 aad buu hadda u soo rogaal celiyay sida hadda xogaha lagu sheegayo waa tahay sidaa daraaddeed waa in aad looga taxadaraa meeshan waxa weeye meelaha ugu badan oo magaranaysa bulshada isugu yimaadaan gartay laakiin deegaankan innaba wax dadoo uu ku dhacay covid-19 kuma aragteen dadku waa si qandhan yihiin oo badanaa baaritaanadii halkan ma yaaliin qandha cabirkii oo kale hadda meelahan waa laga cabiraa dad hore la baarbaaray macnaha xogta way jireen hadda ka hor laakiin hadda inta xogaa uu soo laabtay baaritaano la sameeyay oo macnaha ma jiraanin gartay laakiin dadku digniinaha siisaan ma qaataan wacyigelin baa la siiyaa dadku way qaataaniin afku way xirtaaniin hospitaalka markay yimaadaaniin meelaha macnaha wacyigelinta way socotaa si guud ahaan gartay isbitaalku markaa imse qaybood buu ka kooban yahay dhowr qaybood buu ka kooban yahay bukaan jiifka oo qaybtan hore oo qadiimiga ah
qaybtaas oo emergency oo iyaduna qayb cusub oo dhammaan la dhistay ah TBD oo halkaan ah gadaal oo iyaduna waxay tahay qaybtii dhalmada oo magaranaysa haweenka lagu umulinayay qaybtii ciyaalka iyo nafaqada iyaduna gadaal ah oo halkaan qaybtan dama ah way badan yihiin MCK oo qaybta dama iyaduna gartay marka xaaladda guud ee isbitaalka imika maxaad ku tilmaami lahayd isbitaalka aad buu fiican yahay shaqada aad buu socotaa bukaanku waa iska normal waa yimaadaa xaaladiisu waa caadi way aad iyo aad baad u mahadsantahay xalay markii aan magaalada soo galayba waxa la ii sheegay in ninaan isku magacnimo magaalada joogo oo ka mid ah ragga dhalinyarada ugu caansan ee magaalada degan walaal magaca Cabdisalaam Ciise Axmed Cabdisalaam Hareeri Cabdisalaam Ciise Axmed waa taynaaneystaduna Hareeri Cabdisalaam Hareeri haay ninkii ugu horeeyay labada magac baan iskaga midnay waa tahay magaca maxaad kula baxday magaca horta waxa la bixiyay 9aadkii baa la bixiyay degmada Ayl baan laga bixiyay xilligii dawladii ay dhacday dadkan halka la isugu yimaanay nin kale oo walaalkay oo la yiraahdo Maxamed Xaaji Cali Cagmadhige haay ninkaasaan dabcan ninkaas iga wariisanaa saxaafadda iyo dabcan maskaxeedaha laakiin aniga ninkaas anada la igu kaasbay oo saxaafadda meed ku jirtay mise waad xiisayn jirtay waan xiisayn jiray waliga xilligaas waa yaray saxaafadda BBC baa la dhageysan jiray waa runaa ninkaas ma sha Allah nin wuxuu ahaa runtii maskax cajiib leh BBC subaxdii dadka meesha magaalada wuxuu ugu celin jiray duhurkii oo kale iyadoo sideedii wixii idaacadu sheegtay oo dhan idaacadu sheegtay oo odayaashu waa wariisan jireen waa tay annana inaanu kulay walaalana ahayno isku family waxbarasho ilaa Muqdisho aan hayn baan hayna haay dabcan isaga iga saxafsanaa marka Cabdisalaam kii bal la raacay maadaama BBC saa u xiisayn jirteen dabcan mustaas dhici karta imika magaalada maxaa lagaaga yaqaanaa marka Cabdisalaam Hareeri baa laga yaqaanaa ma sha Allah marka imika laga bilaabo marka Cabdisalaam Hareeri la yiraahdo waan garanayaa inaan de magaca kali ku ahayn Soomaa waa saas weey kali ma jirto nin aan wada leenahay eel joogo runtii waa aad bay maanta farxad arintaas anoo in badan taariikhaha iyo codkaaga bahaya maanta inaan ku kulano Ayl waa runtii farxad iyo anigana farxad aad u weyn bay tahay sidoo kale inaynu Ayl ku kulano barasho wanaagsan mar labaad Cabdisalaam Hareeri waayo walaal barnaamijka soo saaridiisa waxa gacan weyn ka geysatay sharikadda isgaarsiinta ee Golis imika waxaan ku sii soconaa beer qadiimiye iyana oo ka mid ah goobaha taariikhda ugu facaweyn leh ee magaaladan Ayl beertan waxa la sheegay in waqtigii Talyaaniga la sameeyay welina ay sideedii u jirto marka gudoomiyaha ayaa nooga warrami doona gudoomiye beertan iyana goorma lagu qiyaasayaa in Talyaanigu ay sameeyeen beertan Talyaanigu ma sameeyay marka beertan waxa la sameeyay sida taariikhda aan ku hayo 1953 Talyaanigu beertan sameeyay marka ma beer loogu talagalay in dadku ku nastaan sidii markii hore qorshuhu ahaa mise waa beer ay cunto ku beeran jireen may waqtigaas ay ugu talagalay beertan sidii ugu talagalay way waa meel lagu shirayhan jiray meel la fariisiyan jiray nasnimada marka halkaan waxa ka daayay roob fara badan baa ka daayay 2019 bishii December 12 marka roobkaas uu dabeelana waa wateen way roob la midana kulaba inta taariikhda la hayo deegaanka kama aysan diin way waxay ka liftay marka biyihii roobka oo taga waliba marayay meelo aysan weligood gaarin ama guriyo 100 iyo samti ilaa 100 sano guriyo dhisnaa hatta roobkaasi waa dumiyeen guriyahaasna waxa lahaa ninkii la oran jiray Saalin Axmed Saalax Baajureyri ayaa guriyahaas lahaa marka waa ninkii qalcadda sayidka dhisay miya waa ninkii qalcadda sayidka dhisay wiilkiisii way waa Saalim guriga isagu wadamo u dhisay macna way ilaa 100 sano ka hor la dhisay xataa biyahaas waa soo gaareen marka beerihii magaalada marka in badan ilaa 250 beerood ayaa roob ku qaaday oo aan la maleynayn badina biyo soo gaarayaan waliba beerihii ugu fiicnaa magaalada oo dalagyo kala gedisan ay ka soo bixi jireen marka biyihii hadii ay marka beerihii qaadeen meeshii way isbedeshay isla oranaya meeshtan baa beer ahaan jiray deegaanka maxaa ka baxa markaas ugu badan deegaanka waxyaabaha ka badan oo ugu badan oo ka baxa waxa kamid ah dalagyada kala duwan guud ahaan waa ka baxaaniin liin baa ka baxda liin macaan waxa ka baxda babay baa ka baxa saytuun baa ka baxa canuuni baa ka baxa moos baa ka baxa waliba mooskaanu mid ka taqaanina maaha waa mid ka gaagaaban waa kii yaryara weeyo aad maartay u macaan weey marka guud ahaan qudaarta kala gedisanna oo yaryarkaana
waa ka baxaan marka khudaarta halkan ka soo gooda ma deegaankan Eylun bay ku filan tahay mise meel kale u dirtaa khudaartu inta badan horta deegaanka waa ku filnaa jiray oo meelaha qaybtoodana waa loo diri jiray waxyaabaha hadda ugu badan oo magaaladu caanka ay ku ahayd oo gobolada dalka loo kala qaadi jiray liinaanta ka mid ahayd oo aad magaalada uga bixi jiray marka magaaladana waa ku filnayd qayb ka midana gobolada qaybtooda waa loo kala diri jiray gartay marka beerihii imka maxaa ka sii haray beerihii wax yar baa ka haray baa la oran karaa kullu xoogoodii ama intii ugu waaweynayd ama intii ugu fiicnayd biyihii baa qaaday bal hadda beerta ugu taariikhda dheer leh aynu gudaheeda gallo haye biyuhu hodan bay ku yihiin magaalada togana dee durdur baan ku arkayay marka meelahaas isku darayba amay ha meelahaas isku daray qaybtoodana waa yihiin toga kana waa tog weyn oo ilaa dee tog dheer biyaha tog dheer ka yimaada burca iyo halka halkan bay yimaadaan waatay oo badda kaga daraan marka goobaha taariikhiga ee magaalada marka la sheegayo gudoomiye dee beertana waa ku jirtaa Soomaa beertana waa ku jirtaa ha beertana waa ku Talyaanigu beeray Talyaanigu ay ahayd macna marka dhirtan qayb kamid ah Talyaaniga waa beeray qayb kamidana dawladda xilliga siyaad barre baa la beeray inta ka dambeysana waa la beeray marka waa dareemaysaa dhirtan maaragtay facooda dee inta ay leeyihiin inay waqti hore ay ahaayeen aad dareemi karabad ishan hore u soo soconayna meesha ay ka soo baxdo waa ishii marka waa la yara casriyay Soomaa waa ishii xogaa la yara hay kanaaladu maartay biyaha ay ka soo marayaan waatay sanadka oo dhan biyo saas u socda sanadka oo dhan biyahaasu ilaahay amarkiisaas iska soconayaan macnaha marka miyaa la nadiifiyaa si dadku cabaan mise markooda hore iska nadiifiyo ما بيهنا ونظيف مرة والبنا ده نظافة ولا شقية أو ولا نظيفنا يا ما دام أيهن أنت وجبنا مجالة بيه هي عبيسي مركوا بيهنا ونظافة ده في عنتهاي مرة والبنا ولا شقية نظافة بيه ما لو ركرا مركوا صوب تمركي هرب الطلياني جاي هالكم بيرت وجه سمين ودي أنت هاي أصل دورتين وبيها سوية وأنا بركو بيو حاجة كصوب عيان مركا حاجة كصوب حان بيو حاجة كصوب حيان واسكا إله هو واسكا هالك إلهي أمريكا كسب حياة سنة كلنا تاسع سكسر عدانين وسمعت لمانين مركز ده هالكن قاري صار بعد عيو بيوه بعد عيو حس متشرا سما إيه وحسن أنا قمنا غانو واي بيه حسن أنا وضباش شاس إيو مارك تاي لسكعب بيايو لسكعب دبالنا إياه بيوه تي بيه هلا نقال إياه وحسن متشراني هالكن يمكن ندل تاجني قدومي وبيهيو ده si dabiici uga soo baxaya halkan si dabiici halka uga soo baxayaan waa u jeedaa waska un ilaahaas weeye marna kala go imayaan saas iska shumayaan waana biyo macaan Soomaa waa biyo macaan weeye waa hadda waan baabi karnaa waa macaan weeye beertan caanka ay ku tahay magaaladan Eyl waxa ka dhex dhisan aqal Soomaaligii oo halkan idinka muuqda gudoomiye aqal Soomaaligan maxaa loogu talagalay aqal Soomaaligan waxa loogu talagalay horta ummad kasta waxay leedahay dhaqan bay leedahay hay marka inaga de Soomaali hadaan u nahay waa hidaha iyo dhaqankeena weeye aqal Soomaaligu hayaa loogu talagalay inay daawadaan in maxay loo isticmaalaa loogu talagalay dadka imaanaya oo kale waa la fariisiyaa waa ku nastaaniin ku qadayaaniin hay marka waa laakiin waa aqal Soomaaliga cilmiyeysan oo aqal Soomaaliga iyo udbihiyo xogaa baa la farsameeyay hay waa mushakal bal oran kara waatay ya casrigan hadda iyo kii hore waa isagoo la isku daray weeye ya udbihi waxa laga dhigay biraha kan iyo ya dhigihii laakiin marka dabada ka soo eegayso aqal Soomaaliga caadi aad moodaysaa udbihii iyo dhigihii iyo gudaha ka arki maysid waxa maaragtay jire marka waa si xogaa la farsameeyay weeye gartay marka ayaa u soo daawasho tagay inta badan halkan inta badan waxa soo daawasho taga dad badan oo inta badan waxa yimaada dadka diaspora oo qurbaha iyo banaanka ka yimaada dadka gobolada dalka ka yimaada laftigooda waa iska yimaadaanin waa iska dalxiisaanin waa marka in badan baa timaada farsamadan qudheeda gudoomiye waa inaad Soomaalida kala gudbisaan waa sax hay hada farsamadan waxa Soomaaliga la casriyay waxaan ugu talagalnaa in la ka bartay ahayd macna اسمعني بكينو بقدان محويه اسمهان waxa weeyaan waa dhismayaasha Talyaaniga ka mid yahay marka waa boos waxaan jiray meesha tan waxaan jiray xafiiskii boos xafiiskii boos waxaan
waqtiga in xilligii dambe oo dawladda si aad baxday meel kale un baa borsada waxaan jiray markii dambe maxaa loo isticmaali jiray markii dambe waxaa isticmaali jiray maadaama meeshaan sartan tanaawad ay saldhiga iska ahayd waxay iska ahayd iska un bilaysku ba isticmaali jiray bilaysku ma markii dambe iska isticmaali jiray ismayaashan oo dhan ma ogtahay macmil in application-ka waafi ay ku dhammaystiran yihiin dhammaan adeegyada shirkadda isgaarsiinta ee golis sida adeegga sahal oo aad ku diri karto laguguna soo diri karo dollar iyo shilin Soomaaliba sidoo kale xawaalada taaj ayaa ku isticmaali kartaa adigoo u diri kara lacagaha dhammaan daafaha adduunka oo dhan waxaa sidoo kale abka ka dhex maamulan kartaa akoonkaaga bangiga adigoo weliba si dhow ula soconaya dhaqdhaqaaqa Visa card-kaaga application-ka waafi waxaa sidoo kale ka wici kartaa dhammaan daafaha adduunka oo dhan adigoo isticmaalaya SIM card-kaaga golis